بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيو لافلي جانال aad ayaan idin salaamaya asxaabta qaaliga ah meel kastoo dunida ka bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamaya asxaabta qaaliga ah ee ku xiran channelkeena Lovely Channel. waa markale iyo Lovely Channel oo maanta idin wada qada yar oo aad u fudud maasha Allah oo tasti ah oo kale iska araga oo waxaan ku leeyahay 5 daqiiqo oo aad ku samaysanaysid. maanta Lovely Channel waxaa idin wadaa waa bariiska aad u jeedaan iyo bariis bay ka shidantay maalmahan bariis iyo suugadiisii ma way suuga dhaaftay maasha Allah. video bilow dhameystir la soco saad ogaatid waxyaaba aan ka sameeyay inta yar ee halka taalo oo baan ka sameeyay. hilibka waan karkariyay maxaa yeelay waxaa fiican hilibka inuu ku jilco. waan karkariyay biyo cad bas ayaan ku kariyay, cusbo kuma darin, wax kale kuma darin. xoogaa markaan dareemay inuu soo yara jilcay ayaan ka qaaday biyihii uu ku karkariyay ma daadinayo. koobkaas aad aragtaan baan ku shubanayaa, hadhow ayaan gadaal kaga dari doonaa insha Allah. khudradda aan isticmaalayna waa intaa. hadda waxaan sameynayaa hilibkii ayaan ku ridanayaa, wax yaro saliidana waan ku darsanayaa. markuu hilibku xoogaa ay guduuto ayaan basasha ku darsan doonaa insha Allah. khudaarta aan ku darsanayo waa intaas, wax kale oo dheeraada kuma daraya asxaabta qaaliga ah. saliid ayaan ku daray hadda. hilibka waxaa fiican markasta inuu jileec ku noqdo. biir dhac ku karkari kadibna waxaan ku leeyahay saliid yar ku shub oo gaduudi ama shaaxidi insha Allah. kaala arag buu idin noqon doonaa. asxaabta qaaliga khudradda aan haysta maanta waa taa way dhalaalaysaa. talaagada ayaan kusoo geliyay qaybta frozenka. yaanyada qaybta frozenka ayaan geliyay oo dhagax markay noqotay ayaan kasoo saaray. sababta aan ugu soo saaray iyo secretka ku jira waan idin sheegi doonaa insha Allah. dadka qaar siba caruuraha iyo dadka qaar ma jecla suugada ama bariiska inay yaanyo iyo waxyaabahaas maaragtay ka dhex dareemaan. marka diirka ka qaad. diirkana waxaan ku leeyahay haddii aad yaanyada karkarisid dhadhanka ayaa ka taga. haddii midida aad kaga qaadidna yani yaanyada gebigeediba diirkii ayaa midida la tagaysa. marka maxaa samayn kartaa talaagada qaybta sare gasho intaad waxyaabaha kala diyaarsanaysid. markay baraf ku noqoto gacanta cidida ayaad ku fiiqaysaa. talaagada markaad gelisid oo yaanyada ay baraf noqoto cididaas haddaad ku tiraado diirka caadi waa laga fiiqi kartaa, taana inaad karkarisay oo kale. marka saas ayaan waxaan ku leeyahay talaagada xagga sare u geliyay. aniga waxaan kulli ma ka wada qaaday diirka bas waxaan idin tusayaa qaybta aan rabo diirka inaan ka qaado iyo sida fudud ee waxaan ku leeyahay ka qaadi kartay. marka xabada aan jarjaray diirka ma qaadin. xabada labaad ayaan idin tusayaa waa dhagax, waa baraf, mudada xitaa ma goynayso waad aragtaan. wakaas sorry kamarada may qabanin laakiin waa ka 5 daqiiqo waan ka qaaday xabadaas. talabaadna saa markaad cidada ku tiraadid wix markiiba diirka uu ka qaadmaya. ha ka warwarin hadday baraf tahay marka aad dariga ku dartid si fiican ayay u bislaanaysaa. maasha Allah waa taas iyadoo barafa ayaan haddana hilibkii oo basasha markay xoogaa iisoo shaaxideen ku daray. xoogaa baan isku yara guduudinayaa kadibna koobkaygii maraqii aan ka bixiyay markii hore hilibkii aan karkariyay maraqii ka baxay ayaan gadaal kaga dari doonaa insha Allah. 2 xabo basbaas cagaar oo sidiisiina waan ku riday, basbaaska ma kala goynin. bardhada ayaan haddana samaysanayaa. bardhada ma raba inaan waaweyn ka dhigo, waxaan ka dhiganayaa sidaas yar yar oo waxaan ku leeyahay bariiska markaad cunaysid qaadada aad ku qaadan kartid ayaan ka dhigi doonaa insha Allah. ila socda asxaabta qaaliga ah. waataas hadda yaanyadii fiican ayaa xoogaa usoo bislaatay laakiin weli ma bisla. waxaan ku darsanayaa koobkii, waxaan ku darsanayaa kaarotkii oo aan soo yaryaraystay hadda. bariiska cadaanka marka aad suubinaysaan asxaabta qaaliga
yaanu idinka jilcin. suugada waxaa la rabaa suugo rib ah. hilibka waxaa la rabaa inuu waxaan ku leeyahay hilib muuqda baradho muuqata inay wada ahaadaan. yaa markaas bariiska quruxiisu soo baxayaa. baradhada yaana idinka jajabin, yaana idinka burburin. suugadana yaana idinka jilicsanaanin. aniga hadda koobta maraqa ayaan ku daray. waxaan ugu daray xoogaa inay isugu kay bislaadaan. hadhow marka ay diyaar noqoto waa idin tusi doonaa. xawaashada ayaan ku bilaabayaa. xawaashkaas oo isku dardara ayaan haystaa. xawaasho badan oo la isku dardaray ah. yaani qasaac kuma darayo. babrika ayaan ku daray haddana. xawaashka duuduubka ayaan ku daray asagana oo bowdhara. kaari ayaan ku darayaa haddana. maraq digaag ayaan ku darayaa. cusbo kuma darsado cuntada. cusbada haddaad maraq digaag haysataan maraq digaaga isticmaala, cusbada iska dhaafa. haddii aydan haysanina cusbadiina iska isticmaala, dhib male. laakiin maraq digaaga aad ayuu cuntada u macaaneeyaa. marka xabad iyo jab ayaan ku daray. 2 xabo dhan kuma wada darin. biyo dambe iyo wax dambe uma celinayo. baradhada sayska aan uga goostay waad aragtaan asxaabey. baradho waaweyn ma rabo oo hadhowta iyo bislaan weeda. saas ayay ku bislaanaysaa insha allah. waxyaabihii kale toon ayaan tuntay. toontana waan ku dari doonaa insha allah. wax kale kuma darayo. saas ayay ku bislaanaysaa. dabka unban yarayn doonaa insha allah. kamsarada marka u dambeysa ayaan ku darsan doonaa. toon ayaan ku daray hadda oo qeybta carfinta. ma isticmaalayo yaanyo shiishiid ama tamato qasaac ama tomato paste midna ma isticmaalayo. xawaashadii aan ku daray ayaa insha allah guduudin doona. siay soo baxaan waad arki doontaa. dabkaa yar ayaan saarayaa. dabkan kalena waxaan samaysanayaa bariiska cadaanka ah. qof kasta uu yaqaana suu u kariyo, laakiin bariiska aan maanta karinayo waa bariis qumbo lagu kariyey oo maasha allah keligii aad cuni kartid. keligii ayaad insha allah isticmaali kartaa. aad ay u macaan yahay. udgoonka marka waxaan ku leeyahay uu karayo ama uu bislaado yaa xaafadaha shanaad ayaa laga soo horinayaa. bariiska waxba ma qalqaleynaya. waa biyo cadaana ayaan saarayaa. qumbaha aan ku daray waa qumbaha la hoolay. qumbaha bowdharkaana waad ku darsan kartaa ama coconutka bowdharka ayaad ku darsan kartaa. iyo kan aminkaan isticmaalaya aniga waa kala hoolay ee taagtaagan. waayo waxaan rabaa bariiska qofku markuu maaragtay qaato qumbaha xoogaa iligayna ay qabato. waa coconutkii ama qumbihii oo kala hoolay ah oo la qalajiyey. kan bowdharka ah ee caadiga kaaba waad isticmaali kartaan. waad aragtaan boorash ayuu u egyahay. kamana insha allah haddaad ka fiirisaan waad helaysaan. labaduba waa isku mid. kana waad isticmaali kartaa. ka kale ee maaragtay budada ah ka budada ah wuxuu ku fiican yahay bariiska kama dhex muuqanayo. kan laakiin isagii bariiska way is ag joogaan. wax yar oo waxaan ku leeyahay saliidana waan ku daray. bariiska isticmaalaya wakaa. intaas markay iisoo karto cusbo ayaan ku darayaa. markay iisoo kartana bariiska ayaan garka u gelinayaa. bas wax dambe oo aan ku daray male. batar haddaa rabtid qeybta aan saliidda kaga daray batar ayaad ku darsan kartaa ama subag ayaan ku darsan kartaa qofka ikhtiyaarkiisa. sababtaan ugu daray dufanka saliidda waxa weeyaan bariiska inuu furfur iyo noqdo hadhowto oo aanu isku dhegdhegin. waxaan sugayaa hadda inta uu biyuhu iisoo karkarayaan insha allah. markay soo karkaraan waxaan ku darsan doonaa bariiska insha allah. ila socda asxaabta qaaliga. waxaan ku darsanayaa oo kale 2 xabo oo hayl ah. hayl ayaan ku darayaa. qorfo kuma daray. waad ku darsan kartaa qorfo, laakiin aniga hayl ayaan ku darayaa. 2 xabo hayl ah. suugadii waxaan ku darsaday waa diyaar hadda. waxaan ku daray kamsarida ayaan ku daray asxaabe. waan idin tusi doonaa insha allah. suugada bariiska waa inay dhagax noqoto, waa inay adkaato. waad aragtaan see u adag tahay. weli ma dhadhawaa. xoogaa yar baa u haray ilaa intay qalalayso rib ii noqonayso. waad aragtaan saas ayaan ka rabaa insha allah.
waayo bariiska waxaa fiican suugadiisa inay adeeg noqoto. Hadda biyo way soo kareen, bariiskii oo aan soo dhaqay ayaan ku shubayaa. bariiska ma radinin, hadda baan ku shubay oo aan dhaqay. dadka qaar way radiyaan, markaad radisaan wuu dheerdheeraadaa, laakiin bariiska basmatiga anigaan isticmaalay maasha allah ma radiyo, sidiisu waxaan kuley ku bislaadaa. saas ayuu ku bislaanayaa hadda maasha allah. waa qado yar oo aada fudud oo hawl badan iyo shaqo dheer kaaga baahnayn. labada xabe haylka ayaan hadda intaan dhexda ka kala gooyo ku dhex ridanayaa bis, daboolkana waan u dheereynayaa. saas ayuu ku bislaanayaa. waa ka asxaabta qaaliga, saas ayuu u karkarayaa, u badbadayaa insha allah. bariisku yaanu idinka jilcin, bariiska suugada le ma fiicna inuu jilco, yaanu idinka jilcin asxaabta qaaliga. saas ayuu ku bislaaday maasha allah tabaaraka allah. waa diyaar, qadadii waa diyaar. soo farfariista bisinka loo qabto. yaa way nagu wada filantahay maasha allah asxaabta qaaliga. waa kaa maanta casharkii yaraa aan idinku talagalay, qadadii yareydee waxaan ku leeyahay maasha allah. qootana ma dhihi kara, qooto dhaafte. yaa aniga horta bariiska cad iyo suugada aad ayaan u jeclahay, markastana waxaan ku leeyahay waxaan sameeyaa sidan ayaan u karsadaa bariiska. tijaabiya asxaabta qaaliga maasha allah, tijaabiya waad ka heli doontaan. muhiimadda waxa weeyaan suugada yaani biyo idinka noqonin, waayo bariiska cad markaad karsanaysaan haddii suugada ay xoogaa idinka jilicsan tahay bariiska biyo ayuu noqdaa. suugada biyo ayay ka dhigtaa, laakiin marka suugada ay rib tahay maasha allah macaanka iyo tastiga waad arki doontaan insha allah. salaatadiina yar dhacdhac ka siista, juuskiina yar dhacdhac, yaa wax walbaba dhacdhac. anaa idin bilaabaya, saxankaygaan soo qaatay. kamarada waxyar ba-een. bariiska suu furfuru yahay waad arkaysaan asxaabta qaaliga ah maasha allah. waqti dheer idinkama qaadanayo, waa 5 daqiiqo maasha allah tabaaraka allah. waad aragtaan siduu furfur u yahay maasha allah. suugadu adayga waa taa aan idin sheegay, waa inay sidaa suugadu u adkaato oo aanay biyo idinka noqonin. waa in bariiska marka aada cunaysaan uu noqdaa bariis sidii qalalan oo kale, ama yaa oo biyo aanu lahayn maasha allah tabaaraka allah. waa taa maanta intii aan idinku talagalay asxaabta qaaliga maasha allah. ilaahay ha u barakeeya inta haysata, inta aan haysan ilaahay ha siiyo maasha allah tabaaraka allah. waa kaas sidaas ayuu kusoo baxay. aniga intaas baan idila qaybsanayay. salaatadaada akiid waad diyaarsan kartaa, juusaskaaga waad diyaarsan kartaa, furuudkaaga dhinaca ka saaro, yaa casiirkaaga qofba siduu doono yaa ha u cuno maasha allah tabaaraka allah. aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa daawashada videoga asxaabtayda qaaliga ah. asxaabta hore noola joogtay soo dhawaada, mininkiinin waaye. yaa aad baad u mahadsantihiin. asxaabta cusub ay nagu soo biirtayna soo dhawaada idinkana, mininkiinin waaye maasha allah tabaaraka allah. ka faa'iidaysta asxaabta qaaliga, u kariyo faamiligiina, caruurtiina, cid kasta oo jeceshihiin yaa uga faa'iideeya, usii sheergareeya qofkaad jeceshihiin ee raba inuu kasii faa'iidaysto. waa qadayro aada u fudud haddana aada u macaan maasha allah, oo waqti badanna kaa qaadanaynin maasha allah tabaaraka allah. aad ayaan idinka mahadcelinayaa daawashada videoga asxaabta qaaliga, meel kasta dunida daafeeda aad ka joogtaan. waa miskiinta yareeda Lovely Channel oo idin leh like-ta iyo comment iigu reeba wixii su-aalaad qabtaan. subscribe-ka haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay, haddaad nagu cusub tahayna dhacdhac ku sii soo dhawaada, gambaradiinana hore u soo qaata. yaa maasha allah. waa taas qadadeenii qooto dhaaftay maasha allah ee tastiga. yaa intaa yar baan idinla wadaagayay
intaas yar ayaan idinla wadaagayay ya maasha allah. wixii maxaa mahmahda ahayd, wixii ishiisa ku deeqda ma ahayd bay uuntiisa ku deeqdaa. yaa ii hagaajiya mahmahda. waan idinka mahad celinayaa daawashada videoga asxaabta qaaliga ah meel kasta oo dunida daafeeda aad ka joogtaan. waa miskiintii yarayd laafli oo idin soo noqotay oo insha allah hadda kadib aan idin soo gelin doono cuntooyinkii qodqotada ahaa yaa ee aadka u fududaa ee tastiga ahaa ee udgoonka ahaa ee macaanka ahaa ee aan waqtina idinka qaadanaynin. maasha allah tabaaraka allah. ilaahay noo siyaadiyo. ilaahay inta xanuunsanaysana caafimaad ha siiyo. inta waxaan ku leeyahay dulmana ilaahay dulmiga ha ka badbaadiyo. aad ayaan idinka mahad celinayaa daawashada videoga asxaabta qaaliga meel kasta dunida daafeeda aad ka joogtaan. waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha allah ilaahay cuduradan wareegaya hanaga badbaadiyo. ilaahay caafimaad taama insha allah hana wada siiyo. aamiin yaa rabbi alcaalamiin.